السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر والقليل جسان سامر والبكلا سعتان علمي كمبيوترka cashirkan wuxuu ku saabsan yahay sidee aad u soo kici kartaa Photoshop. haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe garee gambalaalkana furo. Adobe Photoshop CC 215 ama CSS programmada kugu jira Adobe sidee u soo kici kartaa laba qab ayaa u soo kici kartaa. Start button inaad klik ku siisid, qaybta searching inaad ka raadisid ama meeshan taskbar kan inuu ku taskbar inaad dhahdid. anaga hadda mana barno meeshaasi start button ayaan klik ku siinayna, searching waa dhigi karnaa ama automatically qaybaha ugu dambeeya waa kan oo intuu ku soo bandhigay. Adobe Photoshop CC 215 ayuu soo kicinaa, kadibna wuxuu ku tusaa environment-kii koowaad. waa kana muuqaalkan ayuu leeyahay markuu soo kacayo. wax yariis aan sugeynaa uu soo akhrinaa software-ka environment markii inta lagu gudbin wuxuu ku tusinaa qaybtan waa qaybta ugu horeysa ee muuqaalka markuu soo kacayo. software walba wuxuu leeyahay nashqad uu goyn ah markuu soo kacayo. software-da Adobe Family wuxuu ka mid yahay nashqad walba midka ka dambeeyay uu ka nashqad duwan yahay. tusaale ahaan CS6ka sidaan ma ahan, 15ka sidaan uu soo kacaa, 18kana si kale ayuu soo kacaa. This is a Photoshop-ka qaybta ugu horeysa soo kicinta waa kana. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa. haddii aad ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe, like, share si asxaab badan ay ugu faa'iideystaan, adigana aad ka mid noqotid mar walba daawada ugu hore ee daawada fiidiyoda aan soo gudbino. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.